بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا برنامج كعافماتك. فيديو waxaan kaga hadlayaa su'aalaha ugu badan ee la soo weydiiyay ee soo noqnoqday ee rabaan aan duulay ka dhigo mid laba ama saddex su'aalo aan duulay ka jawaabo. Su'aasha koobaad oo ah waa maxay sanqadha ruuga laabatada hadii jeer ruuga waxaad ka dareemi kartaa sanqadha ka dareemi kartaa sanqadhaas oo sababta sanqadha caadiyan waxa sababa ama muruq oo lafta xoqo ama seeda oo ay laftu xoqaan marka ay qalafsanaadaan muruqyada ay qalafsan yihiin ee aan ama jimicsi sameeynin waxa laga yaabaa in ay sameysmo sanqadhu hadii jeer waa wax iska caadi ah oo wax dhibaato ama laha laakiin marmar ay wax sababtaa oo ay dhibaato leedahay hadii ama dhaawac ku dhaco ama wax kale ay kugu sababaan ruugaaga ay sanqadhu ay dhibaato leedahay laakiin caadiyan qofku wax uu ka warano maaha oo wax iska kooban oo hadii jeer iska dhaca qof kasta xilliyada kamida ayuu la kulmi karaa sanqadha oo uu dareemi karaa markaad meel ka tagayso oo meel fuulayso ama aad dhulka kacayso waa wax iska dhaca laakiin sanqadhu markeebaad marka sanqadha isku dareento ama qacda ruuga aad dareento xillima ayaad u baahan tahay dhakhtar la kulanto ama aad ka warwarto su'aashan oo aad soo noqnoqotay waxa weeye haddii uu sanqadhaasi ay la socoto inuu ruugu xanuuno ama barar uu leeyahay barkinta ruuga oo kale inay sababto ama xijiyaha ama xidhiidhiyaha waxyaabahaas oo dhan hadday dhaawacmaan ama dhaawac soo gaadho waxaa laga yaabaa inay sanqadhu timaado xanuuno uu imanaya bararna uu imanaya laakiin hadday sanqadhu aanay wax xanuun ah aan ruuga xanuun lahayn barar lahayn wax kale aanu lahayn oo leh sanqadhaasuna ay tahay waxaan kugula talinayaa inaad jimicsi u sameyso aan waxba ka warwarin su'aasha labaad ee la soo weydiiyo hadii jeer ugu badan ruug xanuunku hadii jeer maxaa sababa ruug xanuunka xillibaas ka warwaraa ruug xanuunka hadii aad da'daadu ka weyntahay 40 oo aad ruug xanuun leedahay marka aad soconayso kale ama aad wax qaadayso oo kale ama aad uga soconayso aad isticmaalayso ruugii oo xanuun leeyahay marka aad ruuga kala bixinayso ama aad ku soo laabayso kalena oo xanuun leeyahay waxyaabahaas oo dhan waxa weeye waxa laga yaabaa inaad arthritis oo kale aad leedahay haddii ruug xanuun aad da'daadu 40 ka weyn tahay oo ruug xanuun aad leedahay waxa laga yaabaa waxyaabo badan way sababi karaan barkinta xijiyaasha oo haddii dhaawac soo gaadho waxyaabahaas oo dhani waxay sababi karaan ruug xanuunka haddii aan isku dheelitirnayn lafta sare iyo lafta hoose waxay sababi karaan ruug xanuun ay sababi karaan waxaana ka digtoonataa inaad lugahaaga isdul saarto oo aad lugaha isdhaafiso haddii aad leedahay oo kale sanqadh oo kale iyo ruug xanuun da'daaduna intaa ka weynta waxaa laga yaabaa inay arthritis aad leedahay ruug xanuunka haddii aad ruug xanuun leedahay da'daaduna ay 40 ka yar tahay marka aad ruuga kala bixinayso kale ama isku soo laabayso kale oo xanuun leeyahay waxa laga yaabaa inaanay ahayn arthritis aanay ahayn sanqadhna la socoto kale aad su'aal ay tahay in carjooda ay tahay marka ay carjooda wax noqoto carjooda kuraanta ruuga oo kale haddii ay wax noqoto ama hoosta kuraanta hoos ay xoqonto halkan waxa ku ruuga oo kale su'aal ahaan tusaale sawir ahaan oo kale imanka ruuga waa kaas halkan waa kuraanti weeye oo saasay kuraanti ugu dul wareegtaa ruuga lafta ay saa ugu dul wareegtaa ay ku socotaa raasay ku shaqeysaa laakiin haddii kuraanta qaybta hoose ee kuraanta haddii ay xoqonto oo ama dhaawac soo gaadho ama hadii jeer waxa laga yaabaa ama ay xoqonto oo ay imanka waa clean waa nadiif weeye laakiin furuuc ama xoqotaan ay yeelato ay raf ahaan noqoto oo kale taas ayaa sababta xanuunka ayaa sababta sanqadhana sababta taas oo marka alaale markaad kala bixinayso ama markaad jiraanjir ka digayso ama aad soo fuulayso ama dhulka kacayso kale ama jimicsiyada qaar aad sameynayso kaca fadhiisiga oo kale aad sanqadh dareemayso taas waxa weeye waxyaabo waa waxa ugu badan ee sababa ruug xanuunka waxyaabaha sababa inay carjooda hoose ee ay xoqonto ruuga kuraankurta waxaa ka mid ah in laga yaabo muruqyadaada oo kale inaan isku dheelitirnayn muruqyadaadu qalafsan yihiin oo kale mar haddii qalafsan ama aan isku dheelitirnayn waxa laga yaabaa kuraantii si toos halka ugu shaqeynaysa inay dhinac u beedho
taas oo sababaysa in xoqitaan meesha yimaado. waxaa kale oo sababi kara in laftan sare iyo laftan hoose aan isku toosnayn oo qalooc yaro jiro, taasina waxyaabaha sababa inuu laftu ay xoqonto ayay ka mid tahay. ama had iyo jeer adiga oo sameeya jimicsi oo xoog sameeya jimicsi fara badan sameeya traino fara badan sameeyo kale oo ku celcelis oo kale ama shaqo aad ku celcelis fara badan shaqo fara badan sameeyo kale roogaad ku qabato ama aad isticmaasho hadii jeer marka jimicsiga la sameynayo kale hadii jeer meelaha lagu jimicsado aad isticmaasho kaba aan ku habboonayn aad isticmaasho, taasina waxay sameynaysaa inuu qalooc ama aan u kaalmo isu dheelitirnaantii dabeetana kuraantii meel qaldan ay ku wareegto, taas oo sababaysa xoqitaanka qaybta hoose. tani waxay aad iyo aad ugu badan tahay dadka dhalinyarada iyo dadka da'da dhexe, waxayna aad ugu sii badan tahay dumarka ama hablaha ay aad ugu sii badan tahay. waxyaabaha aad isku arkayso calaamadaha isku arkayso waxaa ka mid ah markaad kacayso dhulka kacayso kale, markaad meel ka degayso ama meel fuulayso, markaad waxaad dareemaysaa sanqadh baad dareemaysaa, xanuun baad dareemaysaa. waxyaabahaas oo waxyaabaha caadada ah had iyo jeer caadiyan waxay ku tahayna qaybtan hore ayaad ka dareemaysaa xanuun, qaybta hore ee ruuga ayaad xanuun ka dareemaysaa. haddii aad had iyo jeer ruug xanuun isku aragto wuxuu doono ha ahaado, waxaa muhiim ah inaad samayso marka hore dawadu waxay ka bilaabataa guriga. muhiim waxa ah inaad marka hore nasiso ruuga aad nasiso, aad baraf oo kale ku kubayso, inaad barkin oo kale u dhigto aad kor yara qaado ruugaagii, inaad isticmaasho xanuun baabiyaal oo kale ama dawooyinka caabuqa hoos yariyo kale aad isticmaasho. laakiin fadlan ha isticmaalin dawooyinka loo isticmaalo infectionka iyo waxa aan antibiotic ahaan fadlan ha isticmaalin. waxba ka tari mayso dhakhtar oo kuu qoro mooyaane ha u isticmaalin. haddaad ruug xanuun leedahay wax dawo ah oo antibiotic ah ha isticmaalin, ama dawooyinka loo isticmaalo hadii jeer infectionka ha isticmaalin. haddaba haddaad ruug xanuunka isku aragto goorma aad ruug xanuunka ka warwaraysaa ama aad u baahan tahay dhakhtar u tagto. haddii ruug xanuunku ilaa isbuuc in ka badan aad ruug xanuunayo uu kaa bi'i waayo oo weliba uu ama barar uu leeyahay ama sanqadh uu leeyahay, waxaa muhiim ah inaad la tashato, aad soo tusto dhakhtar soo tusto si uu kula taliyo oo ruugaaga u qiimeeyo una baadho iyo waxa kugu sababay ay tahay. waxa aad iyo aad muhiim u ah inaad la kulanto doctor aad tusto dhakhtar soo tusto. haddaba waxaan kugula talinayaa inaad iska ilaaliso wax alaala iyo wixii kugu sababaya ruug xanuunka, shaqooyinka kugu sababaysa ama jimicsiyada kugu sababaya ama wax alaala wixii kugu sababaya inaad iska ilaaliso, aanaad iska yarayso jaranjarta. haddii aad ruug xanuun leedahay jaranjarta la fuulayo waxa ama ka degista aad iska yarayso, inaad dhulka oo kale ka kicista oo iska yarayso oo kale, oo ama kursiga oo kale. had iyo jeer waxay kaloo caan ku tahay kursi markaad fadhido ama aad meel u safrayso kale in badan aad fadhido kursiga, hadhow markaad 2 saac 3 saac fadhido isla kac xanuun aad u fara badan ayaad dareemaysaa. marka waxaa muhiim ah inaad si aad waxyaabahaas oo ay kaaga yaraadaan inaad samayso muruqyada qaybta sare ee bowdada iyo kuwa hooseba aad jimicsi u samayso. waxaana ugu fiican inaad samayso baskeesha hadii jirto guryaha la dhigto ama meelaha jimicsiga ah la dhigto kale, taas aad iyo aad u fiican tahay. waxaad kaloo aad samayn kartaa jimicsiga qaybtan sare muruqyada qaybta sare ee ruuga bowdada iyo qaybtan hooseba aad samayso. jimicsiyadaas oo kale waxaad ku samayn kartaa oo kale ruugaas oo kale aad kala bixin kartaa tuwaal ama go' baad isku laabi kartaa. ruuga ayaad hoos ka gelinaysaa si aad u waxayso, ruuga ayaad hoos ka gelinaysaa dabeetana ruugii lugtigaad kala bixinaysaa aad hoos ugu cadaadinaysaa si ay kaaga caawiso ilaa 10 jeer aad ku celcelinaysaa, 4 jeer ama 3 jeer oo kale maalintiina 2 jeer aad samaynaysaa si muruqyada bowdadu ay u adkaadaan. ama intaad jiifsato ayaad lugta aad go' soo qaadaysaa, lugtaadii oo kale aad kor u taagto ayaad go' soo qabanaysaa, saad kor u soo qabanaysaa ku soo celcelinaysaa ilaa 10 jeer oo kale, 3-4 jeer oo kale ku celcelinaysaa. waxay jimicsiyadaas waxay ka guriga aad ku samayn kartaa, waxayna ka caawinayaan in muruqyadu ay ku adkaadaan ay noqdaan isuna dheelitirmaan si uu ay kaaga sahlaan inuu aad ka yaraato ruug xanuunkii. waxyaabahaas oo badan waxay ka caawinayaan inuu hoos u dhaco ruug xanuunkii. mar allaale marka muruqyadu ay shaqeeyaan xanuunkii kale ayaa ka hoos kaaga dhacaya. fadlan haddii aad ka caawinayso waad nala soo xiriiri kartaa. فيديو gooni aan ku soo dirnaa jimicsi oo kugu habboon aan ku soo diri doonaa insha Allah. marka fiidiyowga intaas aan ku soo koobinaa labadaas su'aalood 3 su'aalood aan ku soo koobinaa
إن شاء الله وأنا سوي دونا سؤالها أنا سوي ديسان مربع قاربا سوق قادم دونا إن شاء الله إني كجوابي دونا marka daawada hadda barnaamijku cusub tahay subscribe saar siina share gareys si looga faa'iideysto aad iyo aad u mahadsantahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.